kulan wacan daawadayaal meel walba caalamka ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka wararka isha sirdoonka. qodobada aan maanta ku faaqidi doonana waxaa kamid ah 153 qof oo Soomaali oo isugu jiray wasiiro iyo xildhibaano ayaa dib u codsaday in loogu celiyo dalalkii ay baasaboorada ka haysteen. Shimbirkii Qur'aanku ka hadlay oo laga helay qaaradda Afrika. Guddiga doorashooyinka oo wada qorshe dib loogu dhigayo doorashada Soomaaliya. qodobadaas iyo kuwa kale oo Soomaalida ee caalamka ku saabsan ayaan ku faaqidi doonaa. kusoo dhawaada barnaamijka. Shimbir ah noocii Qur'aanka Kariimku sheegay in ay dileen maroodigii abraha oo lagu arkay qaaradda Afrika. Shimbirka lagu arkay dalka Algeria ayaa muran badan ka dhex abuuray xeeldheerayaasha isirka shimbiraha, taariikhyahanada iyo culimada Qur'aanka Kariimka qaarkood kadib markii la sheegay in uu yahay nooca shimbirka Qur'aanka Kariimka ay sheegay in ay dileen maroodiyaashii iyo ciidamadii uu watay xabashigii abraha ee Kacbada doonayay in uu dumiyo. muwaadin u dhashay dalka Tunisia ayaa helay shimbirka noociisu dhif iyo naadir dunida ku yahay oo la sheegay in uu yahay shimbirkii abaabiil ee Qur'aanka Kariimku sheegay, taas oo abuurtay in warbaahinta caalamka iyo tan bulshada ay dadka uga waramaan shimbirkan iyo qisadii maroodiga ee shimbirkan noociisu ku badbaadiyeen guriga Alle ee xurmada leh. sida ay ku warantay wakaaladda wararka dalka Algeria, khubarada shimbirkan baaray waxay cadeeyeen in aan la garanaynin sababta runta ah ee shimbirkan dhulka ku soo riday, iyada oo la ogyahay in uu yahay shimbirka joog aad u sareeya ku duula meelaha joogoodu dheer yahayna ku nool. shimbirka la helay waa lab, dhererkiisu waxa uu gaarayaa 16 sentimitir, waxa aanu leeyahay baalal aad u dhaadheer oo dib u xoodan, midabkiisuna waa madow xigeen, waxa aanu leeyahay baal dub u ah oo gaaban isla markaana fidsan. Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa Qur'aankiisa ku sheegay ama ku soo dejiyay suuradda 105 ee Qur'aanka kamida ee loo yaqaan suuratul fiil ama alam tara in shimbiro dhagxaan naar ah wata ay burburiyeen ciidankii abraha al-ashram ee kibirka ugu socday burburinta Kacba si uga aargoosto nin la sheegay in uu wasakhiyay kaniisad xilliga ku taalay dalka Yemen oo abraha fadhigiisa ahayd. inkastoo ay xeeldheerayaasha shimbirkaani sheegeen in uu yahay shimbirka abaabiil, haddana waxaa xusid mudan in culimada fasirta Qur'aanka Kariimka ahi aanay abaabiil ku macnaynin magaca shimbirka, balse ay sheegeen in ereyga macnaha looga jeeda uu yahay koox shimbiro koox u socda oo Alle hawshan u igmaday, laakiin Qur'aanku aanu sheegin magaca shimbirka kaliya. si kastaba ha ahaatee, culimada qaarkood waxay sheegeen magacyo kala duwan oo shimbirkan ay u malaynayaan, inkasta oo uu asxaabigu Ibnu Cabbaas ku fasiray in shimbirkan lagu magacaabo abaabiil, waxaase uu tiriyay tilmaamo uu kaga duwan yahay shimbiraha kale oo ay ka mid yihiin in uu leeyahay calaamado la mid ah kuwa baahalaha dadqaadka ah iyo cagaha hoose oo kaga egyahay cagaha eyda. culimada Qur'aanka fasirta qaarkood waxa ay sheegeen in shimbirka abaabiil uu yahay junuud Alle u soo diray waqti cayiman kadibna aan dib loo arkin. Ilaahay ayaa ku cilmi leh. si kastaba aynu halkaa kaga gudubno warbixintan, iminkana warbixinada kale ay noo haray. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa la filayaa in ay 27 bishan aynu ku guda jirno ay hortagaan baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. ila wareedyo ayaa sheegaya in guddigu ay u badan tahay in uu ku dhawaaqo in aysan qabsoomi karin doorasho qof iyo cod ah. Tallaabadan ayaana horseedi karta muddo kororsi ay samaysato xukuumadda talada haysa, walow mucaaradku uu ka digay arrinkaasi. dhinacyo badan ayaa mar sii horeysay ka dhawaajiyay in aysan dhici karin doorasho qof iyo cod ah, iyaga oo cuskaday diyaargarow la'aanta dowladda dhankeeda ah, ammaanka iyo arrimaha muhiimka u ah doorashooyinka. wararka ayaa intaa ku daray in xubnaha guddiga doorashooyinka ay baarlamaanka u soo bandhigi doonaan jadwal lagu qaban karo doorasho qof iyo cod ah, taas oo u muuqata muddo kororsi doorashada dib loogu dhigayo. saaxiibada caalamka ayaa ku adkaystay ahmiyadda ay leedahay in doorashooyinka ay waqtigooda ku dhacaan, iyaga oo raaciyay Soomaaliya in ay xaq u leedahay in ay ogaato waqtiga doorashada. muddaxileedka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee haatan jooga iyo xukuumadda Soomaaliya ayaa dhammaanaya bishan Oktoobar ee sanadkan 2020. hay'adda xasaradaha caalamka ee ICG loo soo gaabiyay oo ka digtay qalalaaso ka dhashay dib u dhac ku yimaada doorashooyinka soo aadan Soomaaliya
ayaa ku talisay in lagu wajaho wada hadal iyo hanaan wadar ogol ah. iminkana aan eegno qodobka ugu dambeeya ee warkeena. ilaa 153 qof oo Soomaali qurba joog ah oo Muqdisho shaqo u joogay oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo siyaasiyiin dawladda Soomaaliya la shaqeynayay ayaa dib u codsaday in loogu celiyo dalalkii ay ka haysteen baasaboorada. qurba joogtan ayaa isugu jiray kuwa xafiisyada dawladda la taliyaalka ahaa, xildhibaano, mas'uuliyiin kale, waxaana ay haysteen baasaboorada dalalka Yurub, Mareykan, UK iyo Canada. xubnahan laga daadguriyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ahaa wasiiru dawlihi wasaaradda arrimaha dibadda Cabdiqaadir Axmed Khayre oo haystay dhalashada dalka Canada. Soomaalida qurba joogta ayaa muddo 14 maalmood ah karantiil ahaan u mari doona ama laga dalban doonaa in ay iska karantiilaan kadib markii ay ku laabtaan dalalkii ay dhalashada ka haysteen. safaaradaha reer galbeedka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay diyaarinayay sidii dadkaasi looga saari lahaa Soomaaliya. dadkan laga daadguriyay ayaa waxaa dalalkoodii dib ugu codsadeen sabab la xiriirta cudurka coronavirus iyagoo ka baqaya in ay gargaar xumo ku haleesho Soomaaliya. balse su'aasha shacabka Soomaaliyeed ka dhex guuxaysa ayaa waxay tahay mar haddii saraakiishii dawladda iyo xildhibaanadii ay dalbadeen in dib loogu celiyo dalalkii ay ka haysteen dhalashada labaad, dalka ayaa u maqan. Soomaaliya ma loo soo shaqo tagay mise waa loo shaqeeyaa?